كل وعنا ونحسن تواضيال ووريسي waxaanu ka qaadi doonaa gudoomiyaha feerka iyo boxingka mudan Cabdisaaq Faysal oo dhawaan u magacaabay wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha kan oo kamid noqon doona xiriir imika ku cusub xiriiradii hore ee hoos iman jiray wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha Cabdisaaq ayaan ka wareysan doonaa bulsheedka loo aasaasay xiriirkan iyo qorshihiisa guud ee sanadkan doonayo inuu fuliyo gudoomiye marka hore soo dhaw Astaan Sports aad baan kaaga mahadcelinaa martiqaadkaaga bal maxaa loo aasaasay marka ugu horeen xiriirkan walaal aad iyo aad baad mahadsantahay Cabdisaaq Binde aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa TV-ga Astaan TV barnaamijkan isaguna inaga qabanaya Cabdisaaq oo xiriirkan waxaa loo aasaasay markii la eegay baahiyo badan oo wadanka jira oo u baahan in la horumariyo ciyaaraha Soomaaliland kala duwan marka xiriirka kubadda cagta xiriir badan baa jira marka xiriirkan feerka waxaa loo soo kordhiyay kadib markii uu arkay wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha Cabdisaaq Muuse Faarax oo markii uu la tashaday guddiga Olombikada arkay in ciyaartan tahay ciyaar wadanku u baahan yahay sidaas la midana anigana lagu magacaabay gudoomiyaha xiriirka feerka ee Somaliland marka ciyaartan waa ciyaar cusub oo Somaliland insha Allah kaana qaadi doonta 3 sano kadib oo Somaliland ay jirtay waxaan rajaynaynaa insha Allah halka ugu sareysa inaan gaarsiin doono insha Allah biidnillah وهجاك ولي لا إمك دي هرا الله ما أساسا وأنا مركي وورسي هل كده حكي بلعبس؟ إمك Cabdisaaq ولا ciyaartan sida warqadda lagu soo saaray waxaan ku dadaalnaa inaan soo dhisno qaab dhismeedkii xiriirka waxaan soo dhisnaa xiriirkii xogayihii guud waxaan soo dhigaysnaa gudoomiyaha ku-xigeenkii structure-kii kala sareeyay xiriirku lahaa sidoo kale waxaan ku dadaalnaa inaan soo dhisno buuggii shuruucda tartamada nidaamkii wixii oo dhan oo qaar badan oo kamid ah imika aanu qabanayba inta kalena insha Allah biidnillah aan dhameystiri doona maalmaha soo sameeyay ama xiriirkan uu cusub iyo dhawaan magacaabay qorshaha marka koowaad marka ka laga yimaado bal ka waran halkee doonaysaa inaad gaarsiisi xiriirkan walaaleen xiriirkan ciyaarta feerku waa ciyaar ka jirta adduunka oo si weyn boxing federationska adduunkana laga ciyaaro ilaa Afrika laga ciyaaro inagu baynu ku cusub tahay marka inagu waxaanu ku dadaalinaa imika inaynu ka dhigno sida ciyaaraha kale ee Somaliland mid la leefala marka qaar ka meeqam sareysa dadaalkeedii iyo nidaamkeedana aan soo kordhino ciyaartani adduunka waa ciyaaraha badan ee lacagaha badan laga sameeyo waa ciyaaraha ugu badan ee loogu xiiso badan yahay Mareykanka iyo wadamo fara badan oo adduunka ka jira marka waxay daruuri u noqotay in Somaliland laga hirgeliyo ciyaartan oo ay bilowyaduna u noqoto insha Allah biidnillah geeska Afrikana si weyn ay uga qayb qaadato Somaliland iyo furka ay u noqonayso xiriirka kubadda cagta qaybaadkeed guddida dacwadaha iyo waliba ayaad qayb weyn ka ahayd imikana de feerkii ayaad gudoomiyaad ka noqotay waa laba xilli oo aad u kala duwan iyad ku sii jiri doontaa imika halkii ciyaaraha kubadda cagta mise halkan bad awood ugu badan oo saarsan inkastoo gudoomiyuhu lagu magacaabo والله ولا سؤال في عن لبعض الحوارات طبعا لبعض حوارات إسرائيل أو لبعض قدوميو إسرائيل كشقيان مركب وحنا كده دالنا إن حرير كعيارها فيركا أو لو صارنا سيد الله هرمر لها at the same time هذه حرير كوبا عقد ونوجا مرمويين أن الله شقينا كده سكال الدوانة هذا من وسارد الرياضة العيارات من الصومال نقبض ترسم هاي وأن الله شقينا وحي أقون يكرتي يتدال المدرن هاي إن شاء الله بين الله ونكبرين حرير كوبا عقد وهيك بوكسينكا مeel heebad ku tala gashay in lagu ciyaaro ma jiraan ilaa imaka goobaad ku tala gashay inaad awood doonaysaa inaad saartaan waxaa jira goobab jimis ah oo imika dhalinyaro fara badan lagu sii tababaradaas oo ahaa markii hore self defense dadka loo bari lahaa difaaca nafsiga imika waxaan u guuri doonaa inaan u rogno jiimamka hore u jiray feerka lagu barto oo caasimada aad ugu badan waliba inaanu ka dhigi doono goobo training ah oo soo saara feeryahana kala duwan coachkoogii soo saara garsoorkii ciyaartan xuli lahaana iyaga dhexdooda laga xulo si ay ciyaartan uga qayb noqdaan feeryahanada ka qayb galaya insha Allah biidnillah awoodda iyo saameynta badan ku yeelan insha Allah biidnillah waa hagaag markaad goobihii aad tilmaamto waliba feerkii sidoo kale aad doonaysaan in qaab dhismeedka xiriirka inaad dhistaan ma jiraan kooxo markaad xog aad urursan jira oo boxingka mise kooxaha maxaad ogeysiinaysaa dadka imka doonayay inay kamid ahaadeen waliba xiriirka ay hoos yimaadaan good point wala Cabdisaaq waxaan marka koowaad doonaynaa horta xiriirkan uu dhisan yahay buug sharci buu leeyahay nidaam buu leeyahay waxa ku dhex qoran objectiveska buugan iyo xiriirkan laga rabo ay kamid tahay ciyaartan inay ka qayb qaadato jirdhiska dhalinyarada iyo horumarintooda ciyaartan kala duwan haddana yimaado su'aashaada ah
sidee tartamada iyo nidaamkaas u dhacaya. waxaan u qorsheynay marka koowaad inaanu soo diiwaan gelino dhammaan goobaha kala duwan ee wadanku ay leeyihiin lagu talagalay ee lagu ciyaaro ciyaarta feerka. markaan kuwaas oo dhammaystirno soo diiwaan gelino xafiiska xiriirka guud ee feerka Somaliland ku diiwaan gelino iyagoo kooxaha iyo iyagoo ashqaas ahba waxaan ku dadaali doonaa inaanu bilowno trainingiski. marka trainingiskaasna laba dhinac bay u kala bixi doonaan. qayb aanu ku siin doono oral oo class intaan ugu yeerno aanu casharadii ku dhigi doono qaab practical ah iyo qayb aanu ku siin doono insha Allah intaan fieldkii garoonkii feerka lagu ciyaariyay keeno tacticskii iyo ciyaartu si u dhacaysay iyo akhlaaqiyadkeediiba ay ka qayb qaataan insha Allah biidnillah. markaan training ka dhamaystirno insha Allah waxaanu ku dhawaaqi doonaa xiriirka iyaga feerka Somaliland inaanu tartankii iclaamino oo aanu qabano oo aanu diyaarinay structurekiisii. markaa walaasaasay isugu soo xigayaan waxa ugu horeynaya diiwaangelinta kooxaha iyo feeryahanada wadanka ka jira. at the same time waxa ku sii xigi doonaa inaan training siino dadka aan u diyaarinay inay feerka ka qayb gali karaan, macallimiintii diyaarino, garsoorkoodii diyaarino. qaybta ugu dambeysa ugu muhiimsanaa inuu tartankii dhacana waa qaybta insha Allah rijadeeda aan doonayno inuu dhacdo insha Allah biidnillah. waxay imka ciyaaraha Somaliland muddooyinkii ugu dambeeyay ciyaaruhu boos walba ka qaateen, hadday noqoto dabaal, hadday noqoto koleygii kubadii cagtii, tenniskii, qalimo horgodkii, ciyaarihii fududaa, orodkii, kaliya wax maqneed unbaa la is odhan karaa ciyaaraha boxingka oo weliba Hargeysa iyo gobolada Somaliland marka la eego jiimo xad dhaafaa laga furay. degmo walba waxa laga yaabaa inay 3 ama 4 goobood oo ganacsi oo jiimay ku jiraan. bal dadkii jiimo ku qaab nooceeya markii ay federation ka la magacaabay bal falcelin nooceed kala kulantay. wallahi haddaan ka hadlo qaybta falcelinta ugu horeysiiyo dadku aad bay soo dhaweeyeen. waxaanad ka arkaysay reaction fara badan oo laga bixiyay markii wasiirku maalintii uu ku dhawaaqay oo ilaamiyay 1 January markii bishii mareysay 8 oo wasiirku digreeto ku soo saaray inaan ku noqdo gudoomiyaha xiriirka. dad fara badan aad bay soo dhaweeyeen, dad fara badan waa u riyaaqeen. waxaa jira dhalinyaro fara badan oo feerkan hore u ciyaarayay sida jiimanka bil khayr iyo fadxul khayr iyo jiimis badan oo jira urur hadda jiro la Somaliland Boxing Association. markii ay waayeen tartanno iyo meel ay ku ciyaaraan dadkii way kala dareereen oo mid walba magaalada ay u dhinac ka galay. xiriirkan waxyaabaha ugu muhiimsan ee loo aasaasay ka mid tahay in dadkii dib loo soo nooleeyo, lagu dhiirigeliyo in tartanimka la qabanayo, la soo dhaweeyo, ciyaartana ay noqoto ciyaar kamid ah sida ciyaaraha kale ee Somaliland u hana qaaday mid u hana qaata wax xafiiskeedii iyo nidaamkeedii waxeegii oo dhan leh. marka ciyaartan dadka hadasho dhinaca falcelinta aad baa loo soo dhaweeyay 100% oo dadku waxa ay doonayaan mar walba ay jecel yihiin maadaama dhalinyarada caqabado fara badan oo shaqo la'aan ay hayso, caqabado fara badan oo hal abuur la'aan ay hayso in ciyaartan baa arki kan il dhaqaale, il wax soo saar, il harabuurkoogii iyo jirkoogii iyo awoodoodii maskaxeed ay lahaayeen ay ku tijaabiyaan sida ciyaaraha kale ee jira. midna aan ku daray wariyay waxa jira Cabdisaaqow 12 xidhiir bay maanta marayaan xiriirada kala duwan ee wasaaradda dhalinyarada 12 hore u jiray iyo xiriirkan hadda soo biiray xiriirka feerka. anagu gudoomiye ahaan taa la magacaabay waxaan ku dadaalayaa xiriirka feerka Somaliland haddaanu noqon ka koowaad inaan kala labaad ee ugu wanaagsan Somaliland ciyaaraheeda insha Allah biidnillah ka dhigo rajadeeduna aad bay fiicanta. aad u maasantay bal ka waran imika laftiga waxaad leedahay buuga shuruucaha bal isaga buuga maxaa tafaasiil naga siin kartaa. Cabdisaaqo buuga sharciga xiriirka feerka Somaliland waa buug u diyaarsan dhammaan shuruucihii kala duwanaaye xiriirkan uu lahaa oo sida ka muuqata wuxuu leeyahay qaybo fara badan 6 qaybood baan u waaweyn qaybaha uu leeyahay. waa qaybta anshax marinta oo feeryahanada akhlaaqiyadkooda iyo intaasi ay ama anshaxoodu aad ugu xumaado ciyaarta dhexdeeda lagu abaalmarinayo. waxa uu leeyahay qaybtii farsamada, waxa uu leeyahay qaybtii abaalmarinada, waxa uu leeyahay qaybtii maamulka iyo structurekiisii oo dhan oo kala wada duwan. marka xiriirka feerka Somaliland waa xiriir u diyaarsan asliyanba in shuruucdiisii markii ugu horeysayba uu diyaariyo gacanta ku dhigo horumariya ciyaartaas ay uga mid noqoto insha Allah biidnillah san horeba kugu sheegay ciyaar weyn oo Somaliland looga ciyaaro. marka buugan wuxuu naga caawin doonaa haddii ay noqoto shuruucdii, haddii ay noqoto qaab dhismeedkii xiriirka, haddii ay noqoto qaabka loo horumarinayo sida maamulku u kala sareynayay sida shaqada loo kala leeyahay insha Allah biidnillah wuxuu noqon doonaa buug aad uga qayb qaata qaybta sharciyada iyo farsamada. goobta xiriirka halkee ku taala haddii dadku doonayaan isku diiwaangelin iyo kooxooyin oo simaadaan ugu dambeyn. fariinta aan halkan ka tirayna imkaad waxa weeyaan dhammaan 12 xiriir ay leedahay wasaaradda dhalinyarada ciyaaruhu
waxay ku leeyihiin xafiis weyn oo dhalinta halkii hore ugu yaalayba ahaa marka ee degmada Gacmo Dheere marka cidii u baahan iska diiwaan geliso naadi ahaan iyo cidii isku baahan isku diiwaan geliso feeriyahan ahaan iyo cidii u baahan isku diiwaan gelisaba inay ka qayb qaadato ciyaartan iyagoo doonayna garsoorka ku biiraan ama coachka ku biiraan waxaan u sheegaynaa inay yimaadaan xafiiska guud ee xiriirka feerka Soomaaliland ee dhalinta ku yaala halkaan ay nagala soo qayb galaan insha Allah anaguna halkaas aan ku soo dhaweyn doonaa wixii warbixin kale tafaasiil kale halkaas aan ku siin doonaa insha Allah biidnillah aad buu mahadsan yahay gudoomiyaha xiriirka feerka Soomaaliland oo dhawaan u magacaabay wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Cabdirasaaq ah gudoomiyaha feerka mudane Cabdirasaaq Faysal aad baan ugu mahadcelinayaa sida wanaagsan aad astaan noogu soo booqatay waxaan rajayn doonaa xiriirka iyo astaan inay wada shaqeyn wanaagsan ka dhaxin doonto 12 hore xiriir baan la shaqeyn jirnay imika xiriirkan waa xiriirka 12aad waxaan rajaynayaa astaan sportsna inay wada shaqeyn wanaagsan indhax marto insha Allah biidnillah wala aad iyo aad mahadsantiin idinka iyo TV-ga astaan iyo saaxiibka biindaba thank you very much aad mahadsantiin